qaabkee online-ka wax looga bartaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube-ka Moodeexeeye. Magacaygu waa Maxamed Salmaan Cusmaan. Maanta waxaan ka hadli doonaa qaabkee online-ka wax looga bartaa ama sideebad wax isku bari kartaa adigoo jooga gurigaaga. Haddaba daawadayaal, su-aashu waxay tahay online-ka wax ma ka baran karaa ama anigoo gurigayga jooga anigu wax ma isbari karaa, ma samayn karaa wax loo yaqaano self study. Waad samayn kartaa. Waxaa jira website-yo online ah isla markaana free ah oo aan kaa doonaynin wax lacag ah, kuwaasoo aad si wacan wax uga baran karayso. Haddaba Soomaalida dhibka haystaa waxa ay tahay inta badan iskuma taxallujiyaan online-ka ama waxbarashada online-ka ah. In online-ka wax laga barto dadka qaar ma aaminsana. Sidoo kale dadka qaar way aaminsan yihiin in online-ka wax laga barto, balse waxa aanay isku karaynin sidii ay isu maamuli lahaayeen ama waqtigooda u manage garayn lahaayeen inay online-ka wax ka bartaan. Haddaba adigan kula hadlayaa ma doonaysaa inaad online-ka wax ka barato isla markaana waqtigaaga aad manage garayso oo aad isku daydo inaad ka faa'iido aqoonta taalo online-ka. Qaabka ugu fiican ee aad wax ku baran karaysaa waa laba shay. Labada shay waxa ay ka yihiin: kow waa inaad waxan horta isku taxallujisaa oo magaranaysaa schedule iyo nidaam aad samaysataa. Waayo waxan haddii aanu nidaam lahayn oo magaranaysaa waqti aanad cayiman aanad wixii dhiganaynin, waa markay kaa qabataba aad dhiganayso dee wixii waad ka caajisaysaa iyo wixii wax laga yaabaa 2 bilood 3 bilood kadib inaad wixii dib ugu noqoto markaa. Marka koowaad waa inaad schedule samaysataa oo tusaale ahaan oo kale haddaad course dhiganayso kale course-ka ama aad skill dhiganayso xirfad cusub dhiganayso waa inaad tiraahdaa maalinkii ama weekii waxaan dhiganayaa 3 cisho oo kale. 2 cishaba hal course baan dhiganayaa oo kale haddaad dhowr course isku wadayso kale. Waa inaad note stake samaysataa. Qodobka labaad waa inaad course-kii doorato ama inaad course-kii kugu habboonaa. Tusaale ahaan oo kale course-kaad xiiseynaysa ama doonaysa inaad doorato baa muhiim ah. Weliba anigu waxaan kugula talin lahaa inaad ku bilowdo course aad xiiseynayso, hadduu graphic design yahay, hadduu video editing yahay, adigu xirfadda aad jeceshahay favorite ahaantaada way ka caajismaysid. Marka taa dooro kadibna taa kaga shaqaysii. Xirfaddu maanta haddaad barato xirfad waad ku shaqaysan karaysaa, wax baad ku qabsan karaysaa, taasaana muhiim ah. Waxaan kuu sheegi doonaa intaa marka laga yimaado waxaa jira dhowr meelood oo aad ka heli karaysid koorsooyinkaas ama aad ka raadin karaysid. YouTube-ka kamid ah, platform Google-ka kamid ah, hadda xitaa qolyahan aad isticmaasho ChatGPT-ga iyo AI-ga iyo aad isticmaasho su'aalo weydiiso way kaaga jawaabayaan. Anigu waxaan kuu sheegi doonaa 3 website oo aad muhiim u ah, kuwaas oo kaa saacidaya oo laga helayo barashada online-ka ama koorsooyin fiican aad ka helaysid. Waxaa kamid ah koorsooyinka website-yada kuwa ugu muhiimsan waxaa kamid ah Coursera. Waa website-yada kuwa ugu muhiimsan buu ku jiraa, kuwa ugu kaalinta sareeya buu ku jiraa. Shahaadooyinkooda waa la helaa. Shahaadooyinkooda haddaad heshid yacni wax badan bay kaa saacidayaan. Markaa Coursera waa website-ka ugu muhiimsan ee wax ka baran karaysid. Number 1 buu ku jiraa. Number 2 waxaa ku jira Alizon. Alizonku waa website free ah isla markaana aan kaa doonayn wax lacag ah. Shahaadadun baad iibsanaysaa. Coursera-hana isaga qudhiisa lacag uu leeyahay oo koorsooyinka qaar waa la iibsadaa, qaar free-na way jiraan laakiin shahaadada qaadan maysid. Markaad shahaadada doonaysid baad course-kii lacagtii bixinaysaa. Waa sida dee koorsooyinka caadiga ah ee free-ga la soo xayeysiiyo short course-ooyinka registration-ka iyo shahaadadu lacagteedu baad bixisaa deetana waad dhigataa. Marka qaabkaas oo kale weeye. Website-ka saddexaad ee kaa caawinaya inaad wax dhigato waa Udemy. Udemy waxa laga helaa many courses, hadday video editing noqoto, hadday graphic design noqoto, hadday noqoto marketing, hadday noqoto engineering, waxyaabo badan ayaad ka helaysaa. Koorsooyin fara badan hadday noqoto psychology, hadday noqoto English, hadday noqoto waxyaabo badan online koorsooyin badan baad dad isbari karaysaa adigu oo waqtigaaga kaga faa'iideysan karaysaa. Intaad mobilka isticmaali lahayd ee waqtigaaga kaaga ciyaari lahaa, online-ka si fiican u adeegso technology-ga oo qaybta faa'iidada leh u adeegso, kadibna si fudud ayaad ku baran karaysaa waxyaabo fara badan. Intaas ayaan idinla wadaagay. Intaasaan siri waa inta ugu muhiimsan ee qof kastaaba uu koorsooyin online uu ku heli karo waxna isku bari karo. Muuqaalkan haddaad ka heshay like garee, subscribe noo saar, gambaleelkana furo si aad muuqaalada xiga aad u ogaato ama ay kugu soo dhacaan ama aad u heshid. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad mahadsantahay.